Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga waa Xaawo Cooking oo idin leh. Soo dhawaada meel kastoo dunida ka joogtaan. Maanta maxaan inoo wadaa? Waxaan noo wadaa maanta maasha Allah tabaarakallah malaay ama kalluun aan noo wadaa oo steak ah. Marka insha Allah waxyaabaan ku dardari lahayno waa idin tusinaa. Hi guys, I would like to share with you today fish steak, how to make and how to marinate it. Inshallah, let's see. I have here onion and coriander and black peppercorn and chili powder and cumin powder. waxaan haystaa filfil madow shiidan iyo basal aan ku soo daraa insha Allah, iyo basbaas yar iyo xawaaji dhuudhuub insha Allah. taasi waa kabsar ku jirto iyo basal waaye oo aan isku soo shiiday, iyo filfil madow shiidan iyo basbaas iyo muxuu ahaayay xawaaji dhuudhuub shiidan. intan maxaa iiga jira marka ku soo daraaya, waan soo marmarinayaa. waxaan ku daraa wax yar saliid olive ah, wax yar yani I need just like 1 spoon, wax yar oo qaada camal. aan saas ugu wareejinayaa. waan isku soo qasayaa. marka kulli waan soo marmarinayaa dhammaan. I'm going to spread all. marka kulli soo marmari dhammaan. saliidina waa ii kululaatay waa kan insha Allah. marka waan ku ridridayaa. carafta kasoo baxaysa maasha Allah tabaarakallah. hal aan u saarayaa. marka bariiskii aan hadda soo karinayna insha Allah. 3 koob bariis aan soo dhaqay oo biyo la soo dhigay cabaar. I'm gonna cook rice guys, 3 cup. I was soaked with water just about 30 minutes. saliidan ku shubanaya maasha Allah. malayga dhinac kale taan u gediye una karaya. marka saliidan noo kululaanayso waxaan ku darayaa maraq digaag iyo muxuu ahaay filfil madow, basbaas yar iyo xawaaji dhuudhuub, qorfe, heel iyo dhageyre iyo muxuu ahaay star anise. asagan dhageyraha camal waa asagan xidig camal u samaysan. intaasaan isku soo daraa insha Allah. I have a black pepper and chili powder, cumin powder and Maggi powder. I have clove, cinnamon stick and star anise. I have here onion and coriander, basal iyo muxuu ahaay iyo kabsar. isku soo jarjaray soo yaryarey mashiinkan ku soo jira actually. saliidan ku shubayaa. maasha Allah way soo buraysaa. qurux carafta kasoo baxaysa maasha Allah tabaarakallah. asxaabi kaamiradan gacantaan ku hayaa. waxna horaan kasii walaaqayaa marka hal gacan kaamirada waaye.
walaaqaya si isku dhex galaan. I'm gonna mix together, mashallah. Marka all spice I'm gonna put one time, waxa dhan hal mar aan ku daraya. This rice is easy to make, mashallah, and professional also. It's so beautiful and yummy when you see the rice. Bariiskan mashallah wuxuu noqonayaa bariis oo high class loo kariyo camal noqonaya. Waana maxay hito sida loo karinayo way fududahay. I'm gonna add rice. Bariiskan ku darayna hadda. Waan isku soo walaaqaya dhammaan. I'm gonna mix all together. biyo kulul aan ku daraya oo ii karkarsanaa 4 koob camal. biyaha ka badinin, biyaha inay wax yar maarta ka dulmarsiin, wax badan zaid ka kormarisid soo rukaa noqonaya. Had bariiska markaan walaaqayso uma jeedin aragtiisa waa ka arag. waxa mooda bariis biyaha ku yar yahay, qaadada saas ugu istaaji inay qaadada dhan hoos gelinaa la rabaa. waxaan ku dabooleynaa aluminium baalkan aan ku daboolaya kitchen foil. waan soo daboolaya 15 daqiiqo soo karinaya 15 minutes. I'm gonna cook together inshallah. Okay, bariiska aan fiirino. Let's check the rice. Yes, salam. MashaAllah. Look how beautiful it is. Arag sida uu qurux badan yahay. waxaan ku darayaa food coloring oo cagaar ah one side. hal dhinac food coloring aan ku darayaa kalarka bariiska. wax yar saliid aan ku dhibcinaya olive ah. just little bit of olive oil. kii gaduudnayna dhinacaasaan ku daray. cagaarkiisana u soo walaaqaya oo ku soo tirtiraya. saas ugu soo tirtiraya mashallah. isku qasaya bariiskii hoose kii kor jira marka ma la jijibinayo bariiska tartiib 4 geeti. haddana kii kale jaalo ahaa ama oranjiga isku soo walaaqaya. cadkii oranjiga wixii dhan aan isku yar qasaya kulli. bariiska markaa kala bixinaysid si tartiib u baahan yahay. kii hoos jira ina kor soo marisid. at the bottom one you have to take it up. ay saxankaana soo diyaarsada aan rabaa inaan ku shubo inshallah. bariis mandi aan ku dhaan caadi ahayn waa mandi. rice mandi easy gas loo kariyaa. wax ka caraf badan oo ka macaan badan bariiska hal uu kala baxsay sidoo isku ma dhadhagno. hadee marti ku imaanayso waxaan ku dhahay quruxdiisa waa laga yaabaa mashallah iyo caraftiisa iyo macaanka intaba. if you have a guest, this rice is so beautiful. or a special action if you needed to cook, it's really nice mashallah.
raalli ahaada asxaabey groupkii joog maasha Allah tabaarakallah. Fishkiina waa kan oo aan soo dubay. Ansalaatadana waa kasoo soo diyaar garoorkaagsan mar hore ay diyaarsanaa. Markaas aan u diyaariyo daarad ansalaatadan channelkiga ka fiirsan kartaa iyo garoorkaasba. Inshallah, this is the lunch so complete guys. If you like, share and comment inshallah. Please if you like my video, subscribe asxaabi dakeeshin video kay subscribe isaaro waana mahadsantihiin inshallah. Kusoo dhawaad channelkiina waa hadaan ugu cusub tahay kusoo dhawow. Hadaa horena la joogtana waa ku mahadsan tahay. Jazakumullahu khairan. See you in next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairan idin rajaynaya dhamaan inshallah.